kulamo isdaba joog oo lagu soo horjeedo qorshaha madaxweynaha Mareykanka oo lagu wado inay ka dhacaan qaybo badan oo caalamka Islaami kamid ah sida wadamada Carabta wadamada Islaamka oo kulamo ka yeelanaya qorshahaas sidoo kale hadalkii Netanyahu oo wadamada Carabta in badan ay ka soo horjeesteen Israa'iil ciidankeedu oo isaga baxay qaybo kamid ah magaalada Gaza guuldarro xoogan oo lagu tilmaamay inay ku tahay ka bixidda ciidanka Israa'iil deegaankaas ay isaga baxeen iyo shacabku dib ugu laabanaya deegaano badan oo ciidanka Israa'iil maanta ay baneeyeen kusoo dhawaada markale Caalami 24 haddii aad nagu cusub daawada YouTube-kana Facebook-kana kusoo bir haddii aad hore noola joogtana like share noo saar si bulsho badan aan u gaarno aan ku bilownay waxaa soo baxaya in wadamada Carabta iyo wadamada Islaamka laga qorsheynayo inay dhacaan kulamo looga soo horjeedo qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan barakicinta shacabka Falastiiniyiinta dowladda Iiraan ayaa dalbatay in ururka wadamada muslimiinta oo lagu yaqaano OIC ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga soo horjeedo qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Iiraan sidoo kale tay madaxweyne Trump cadaadis xoogan ayaa ka dhaxeeya waxay doonaysaa in garab ka hesho wadamada Carabta oo hadda qorshe kale oo aad u kacsan uu dhexda ka galiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Iiraan waxay la hadashay xogayaha ururka wadamada iskaashiga Islaamka ee OIC loo soo gaabiyo waxayna ka dalbatay in la qabanqaabiyo kulan degdeg ah oo wadamada Islaamka isugu imaanayaan si looga wada hadlo xaaladda magaalada Gaza iyo madaxweynaha Mareykanka qorshaha uu doonayo inuu ku barakiciyo shacabka magaalada Gaza loogana raro magaaladaasi sidoo kale waxaa la sheegay in uu jiro kulan dowladda Masar ay qabanqaabinayso isugu imaanaya ururka jaamacadda Carabta kulankaas oo lagu tilmaamayo kulan degdeg ah 27-ka bisha Febraayo loo qorsheeyay in lagu qabto magaalada Qaahira ee dalka Masar loogana wada hadli doono xaaladihii u dambeeyay ee soo kordhay oo la xiriira magaalada Gaza madaxweynaha Mareykanka deegaanada uu doonayo in lagu barakiciyo shacabka Falastiiniyiinta waxaa kamid ah dalka Masar iyo dalka Jordan kuwaas oo ka dalbaday inay qaabilaan qaxootiga Falastiiniyiinta isagoo waliba ku celceliyo dhowr mar inay qaabili doonaan oo taasna ay qasab ku tahay aqbali doonaan Masar iyo Jordan dhamaantii way ka soo horjeesteen dhawaan sidoo kale waxaa soo baxay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dalbaday in state Falastiiniyiintu ay leeyihiin laga dhiso dhul Sacuudiga uu leeyahay halkaasna loo raro dadka Falastiiniyiinta ee magaalada Gaza degan iyo guud ahaan daanta galbeed halkaasna Israa'iil lagu ballaariyo waa sida ay qorsheynayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo dhanka Netanyahu oo qorshahaas dhankooda uu ka soconayo dowlado badan oo Carab ah ay kamid yihiin Ciraaq iyo Kuwait ayaana kamid ah dowladihii ugu dambeeyay ee qorshahaasi ka hor yimid diidana in shacabka Falastiiniyiinta loo raro deegaano Sacuudiga ay kamid tahay si guudna waxay diideen wadamada Carabta in shacabka Falastiiniyiinta halka laga raro hasaatee su'aasha ayaa ah ilaa intee ay ku sii adkeysan karaan maadaama dowladaha ku hareeraysan Falastiiniyiinta ay yihiin dowlado inta badan ku tiirsan kaalmo Mareykanku uu siiyo haddii kaalmadaasi uu ka gooso aysan helin wadan kale oo ka taageero kaalmadii isagu siin jiray bedelkeed siiyana aysan ku adkeysan karin in qorshahaas adkeysiga ay ku diidayaan qorshaha Trump uu sii socdo cabsi badan ayaa laga qabaa in dowladahaas isbedelaan aqbalaan qaxootiga Falastiiniyiinta iyadoo loogu yeerayo in number yar ay qaabili doonaan taasna marka dambeeto maadaama ay bilaabatay qaabilaad ay sameeyaan lagu soo barakicin doono inta kale ee hartay Trump in badan wuxuu ku celceliyay magaalada Gaza ay tahay laga dhigo magaalo ganacsi oo hoteelo waaweyn iyo goobo ganacsi waaweyn laga dhiso si loo nadiifiyo dib u dhiska loogu sameeyana ay tahay shacabka marka hore laga saaro hadalkiisa koobaad waxay tahay in si ku meel gaar ah shacabka looga saaro marka la nadiifiyana ama la dhisanay dad dib ugu soo laaban doonaan hasaatee mar haddii ka baxaan deegaanka waa midaan suurto geli doonin inay mar kale ku soo noqdaan maanta haddii loo yimaado magaalada Gaza oo shalay maxaabiis laga sii daayay waxaa soconaya sidoo kale tan ciidanka Israa'iil ka bixidda aagga la yiraahdo Netsanim ama jidka la yiraahdo Salaaxudiin oo koonfurta iyo waqooyiga bay isaga kala gooshi lahayn dadka Falastiiniyiinta halkaas ay isaga wada bixeen ciidanka Israa'iil Hamas saraakiil ka tirsan oo ka hadlay waxay sheegeen inay tahay guuldarro weyn oo soo gaartay Israa'iil ciidankeeda maadaama ay hadda dhamaystireen in Netsanim ay isaga baxaan ama Salaaxudiin halka waxaa ka muuqan in burburaad xoogan dhulbeereedka ku hareersan jidkaasna waxay guud ahaan burburiyeen ciidanka Israa'iil deegaano badan oo kamid ah deegaankaas waxay kamid ah deegaanada carradoodii xitaa la gadiyay ama aad loo burburiyay oo ciidanka Israa'iil fariisimada xoogan ay ku lahaayeen in badan iyagoo raadinaya godadka ciidanka Hamas ay ku jiraan maxaabiista lagu hayo ayay deegaanada qaarkood sida la og yahay wacagacaw inta ku burburiyeen waxay carradeedii ay banaanka u soo saareen
oo carragedin xooggan ay ku sameeyeen. inkastoo la aaminsan yahay marka ay dhammaato xabad joojinta wejiga koowaad ama wejiga labaad ee maxaabiista la isku dhaafsanayo in Israa'iil qorsheedu u yahay Mareykankuna uu ku taageerayo in mar kale dib dagaalka loogu soo laabto oo heshiiskii looga baxo Xamaas iyo kooxaha guud ahaan wax iska caabinta Falastiiniyiinta. taas haddii ay dhacdana waxay noqon kartaa in ay isku dayaan in barakicinta Falastiiniyiinta si qasab ah ay ku sameeyaan. inkastoo 15 bilood oo dagaalku soconayay dadka Falastiiniyiintana wax kasta laga jaray lana barakiciyay lana laayay ay suurtagali weysay in si rasmi ah Israa'iil ay u qabsato deegaankaas uguna noolaato. haddana hadda mar kale ayay u muuqataa in isku daygaasi ay doonayaan Mareykanka iyo Israa'iil in dib loo soo celiyo. hadda ciidanka Israa'iil waxay baneeyeen aagga Salaaxudiin ama Natsaarim loo yaqaano oo la maleynayo shalaba inta maxaabiista la iswadaarsanayo inay ka bixi doonaan. hase haatee warbaahinta Al-Jazeera warbaahinay ka mid waxay tabinayaan in maanta ciidanka Israa'iil ay dhammaystireen ka bixidda Natsaarim. maxaa xigi doona oo ay noqon doonaan qorshaha Mareykanka iyo Israa'iil ay la imaan doonaan? inkastoo ciidanka Israa'iil hadda ay isaga bixeen deegaankaasi, haddana waxaa wax badan la iska weydiinayaa sidee ugu fududaan doontaa in mar kaleeto deegaan markii hore ay gacanta ku hayeen ilaa iyo 15 bilood oo dagaalku soconayay inay ku sugnaayeen ay mar kaleeto in taangiyada uga baaba'aan ay ku aamini doonaan oo ay dib ugu soo laaban doonaan. dowladda Mareykanka ayaa dhowaan fasaxday hub aad u khatar badan oo islagu wareejiyay ciidanka Israa'iil si ay ugu adeegsadaan burburinta deegaanada Falastiiniyiinta. waxaa dhan kala soconaya ciidanka Israa'iil howlgallada ay ka wadeen daanta galbeed, iyadoo warbaahinta Al-Jazeera ay tabinayso muuqaallo muujinaya in ciidanka Israa'iil ay kordhiyeen howlgalkooda daanta galbeed. halkaas waxaa la arkayay ciidanka oo aad isugu fidinaya deegaano badan, sidoo kaleetana kaamka qaxootiga ee ku yaala deegaanadaasi aad u burburinaya. muddo dhowr asbuuca ayuu soconaya howlgalkaas ciidanka Israa'iil ay ka wadaan daanta galbeed oo kasoo bilowday xerada qaxootiga Janiin, halkaas oo aaminsan yihiin kooxaha Falastiiniyiinta wax iska caabintu ay salgiyo xoogan ku leeyihiin. howlgalkaas waxaa sidoo kale la sheegayaa mararka qaarkood inay ka garab siinayaan kooxaha Falastiiniyiinta ee maamula daanta galbeed qaybo ka mid ah, inkastoo maamul ahaan aanay deegaan madax bannaan maamulin oo ciidanka Israa'iil mar kasta siday doonaan ay ayaguna uga shaqaystaan. haddana waxaa la tabinaya iyaga laftooda bilaabeen in kooxaha wax iska caabinta ee deegaanada ku sugan ay hubka dhigid ku sameeyaan. khatar kale oo aad u xooggan ayaana halkaas ka soo socota oo la xiriirta in Falastiiniyiinta laftigoodu ay isku dhacaan oo halkaasi ay noqoto Israa'iil iyo ciidan Falastiiniyiin oo isku dhinaca iyo kooxo kale oo Falastiiniyiin ah oo xaq u dirir ah oo dhinaca kale ka soo jeeda.